love you my baby, I love you my baby, love you my baby. fadlan haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirso. sheekadan waxay ku dhacday nin magaciisa la yiraahdo David wuxuu shaqo ka soo qabanayay tuulo aad ugu dheer. shaqadii markii uu soo dhameystay wuxuu damcay inuu kusoo laabto magaalada. David waxaa lagu gaaray xilli dambe, laakiin nasiib wanaag wuxuu watay tutorial kasta oo gaari u baahan yahay sida gaas iyo kiyooyinka lagu sameynayo gaariga. David asigoo wadada ku jira ayuu wuxuu arkay baabuur wadada taagan. kadib wuxuu damcay inuu soo fiiriyo dhibaatada heestana uu soo xalliyo inkastoo heesto wax kastoo baabuurka u baahan yahay. kadib David wuxuu arkay laba nin oo baabuurka banaankiisa taagnaa oo ku dhahay fadlan nacaawi walaal haddii aad nacaawi karto baabuurka wuu naga halaysan yahay. David wuxuu damcay inuu dadkan caawiyo. kadib David wuxuu dhahay gaarigiin iskaga laabta aniga ayaan caawinayo. laakiin nimankii baaq ay sameeyeen. David wuxuu arkay qofka baaqa loo sameynayo wuxuuba arkay gaariga in laba nin kale ay ku jiraan. David aad iyo aad ayuu u naxay, waxaana dareemay in dadkan ay qorshe damacsan yihiin. baabuurkii ayuuna furay, wayna isku baaqayeen. wuu dareemay in ay dadkan rabaan in ay dilaan. kadib wuxuu keenay fikrad uu uga cararo David, wuxuuna dhahay kiyaaba ayaan soo hilmaamay baabuurkii ayayna ku jirtaa, marka kiyaabada ayaa soo qaadaya ee isuga. David wuxuu soo aaday dhinaca baabuurkiisa, wuuna dareensanaa in ay laba qof aad u kontroolayeen wax kasta oo sameynayna fiirinayeen. hal mar ayuu baabuurkiisa si xawli ku soo galay, si dhaqsi ah ayuuna ku waday baabuurkii. kadib wuxuu u maleynayay David inay ka hareen, laakiin dadkii iyagana baabuurkii si xawli ayay u soo wadeen iyagoo baabuurka gadaal ugu dhufanaya weliba. kadib baabuurkooda ayay baabuurkii David soo agstaajiyeen, weliba iyagoo mindi la soo baxaya. mid ka mid ah ayaana mindidii wuxuu ku garaacayay miyaaradda David, weliba baabuurada iyagoo xawli u socdaan. laakiin David baabuurka weli muusan joojin. kadib baabuurkii ayay ku garaaceen baabuurkiisa. David wuxuu la yaabay dadkan sidaan riski u gelinayay nafsadooda. kadib David baabuurkii ayuu istaajiyey. markuu istaajiyey baabuurkii ayay ka soo degeen. hal mar ayuu David si xawli ah baabuurkii haddana u waday. inkastoo baabuurkiisa dhowr garaaf ay u geysteen, laakiin nasiib wanaag uu ka soo baxsaday. wuxuuna imaaday magaalada, kadibna way ka hareen. gurigiisa ayuuna asigoo gurigiisa jooga ayuu TV-ga wuxuu ka arkay in dad burcad ah ay dileen nin masaakiin ah, weliba isha mindi ay ka geliyeen. David arrinkaas aad iyo aad ayuu uga naxay, laakiin wuxuu ku faraxsanaa inuu nafsadiisa soo badbaadiyey.